بسم الله الرحمن الرحيم أقياري كل وناكسن إذلكين باميل كستوات جوكتان واللحي طوانك أكتوبر سنة كاللبا كنشاني لباتان مقال كاللبات نوعاوة كوكل مدونا قضبادا أن إذين كوكوهيانا وحاكمدا رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أيا يسوغو ياري قوله سواسير ردا سيأي قوان دقدقا وقاقاتان إن أي كبحان هشيسكا مقالada قسل لغا قلي اللغو صحيحي شرم الشيخ heshiiskaas uu damaanad qaaday fulintiisa dhinaca Israel madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump arrintan ayaa walaac ku beertay qaar kamid ah wadamo ay kamid yihiin Qatar, Turkiga iyo Masar kuwaas oo doonaya in xabad joojinta laga gaaray magaaladaasi uu horseed u noqdo heshiis ballaaran oo ka islaaxa gobolka Bariga Dhexe haddaba maxaa ku qasbaya Israel inay tallaabooyinkaasi qaadaan markii ugu horeysay taliyaha ciidamada Israel Eyal Zamir ayaa ku dhawaaqay in ay ku fashilmeen weerarkii kooxda Hamas ay ku qaaday 7 Oktoobar gudaha nidaamka Israel waxa uu yiri waa inaan qiranno haddii aan ciidamada nahay mas'uuliyad la'aanta iyo waliba in fashil amni oo weyn aan guda galnay haddaba taasi ma qaadan doonaan saraakiisha sarsare ee ciidanka muxuuse u arkaa hadalkan ka soo baxay taliyaha ugu sareeya ciidamadaasi رئيس الوزراء نتنياهو warbixin ayaan idinkaga hayaa barnaamijkana aan ku faaqidi doono caawa dawladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday in ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan baadigoobka meydadka Israel iyo dadka la haystayaasha ah ee ku maqan gudaha magaalada go'doonsan ee Gaza xilli laga baqdan qabo in dagaalka mar kale uu dib u bilowdo kadib markii Hamas ay sheegtay in qaar kamid ah la haystayaasha meydadkooda ay ku jiraan dhul burburay oo u baahan in loo helo qalab casri ah hasaatee taasi Israel ma aqbalin dawladda Pakistan waxa ay soo saartay war adag oo ku socda Taliban taas oo muujinaysa in dagaalka u dhaxeeya labada dhinac uu dheeraan karo ama in si degdeg ah loo soo gabagabeyn karo laakiin fariinta ka soo baxaysa dalka Pakistan ayaa u muuqata in ay horseedi karayso xal nabadeed oo waara haddii ay Kabul la qaadato Islamabad talooyinka ay soo jeediyeen qodobadaas ayaan ku fiirinayaa caawa tabinta barnaamijkan iyo xogihii ugu dambeeyay ee gobolka Bariga Dhexe ikhiyaaray soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara haddii dhinaca Facebook aad nagala socotaana nagu soo biira oo follow soo dhaha aad baad u mahadsantihiin fiirinayaa marka la fiiriyo hadallada iyo hanjabaadaha ka soo baxaya dhinaca Israel iyo Mareykanka رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ayaa goor dhaweyd oo caawa ah war uu ka soo saaray xafiiskiisa waxa uu ku sheegay inuu si degdeg ah isugu yeeray golaha kooban ee wasiirada dagaalka ee nidaamkaasi si ay qayb uga noqdaan talo iyo xaajo laga gaarayo in Israel ay ku sii soconayso ama inay ka laabanayso heshiiskii nabadda ee gobolka Bariga Dhexe kaas oo lagu saxiixay magaalada Sharm el-Sheikh ee wadanka Masar haddii taliyash aan iraahday wasiirada Israel iyo Netanyahu ay isla qaataan in heshiiskaasi laga baxo waxay ka dhigan tahay in weerar lagu qaadayo magaalada go'doonsan dibna ay u bilaaban doonaan duqeymaha qubrada ka faalloonaysa dagaalka waxa ay tilmaamayaan inay adkaan karayso haddii markan qoriga xabadu ay ka baxdo in dhinacyadan la isku keeno dawladda Mareykankuna waxay u muuqanaysaa in ay ku fashilmayso ballanqaadkii diblomaasiyadeed oo ku saabnaa dhinaca Israel inay damaanad qaadayso in heshiiskaasi uu fulo hasaatee tallaabadani waxa ay ku soo aadaysaa sidoo kale iyadoo madaxweynaha Mareykanku uu sheegay in haddii Hamas ay sidan ku sii socoto Israel fasaxi doono in dib dagaalka ay u galaan telefishinka Sky News ee laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadku waxa uu leeyahay waxa isi soo taraya wararka sheegaya in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu qamiistu qaban doono kulan aad u muhiimsan oo ku saabsan in dawladdiisa tan iyo markii la galay heshiiskii xabad joojinta ee lala qaatay Hamas si loo go'aamiyo in Israel ay sii wado heshiiskaasi ama in gabi ahaanba ay laasho oo ay ka baxaan sida uu daabacay warbixin wargeyska Israa'iiliga ah ee Yadiicooda Axranood lagu magacaabo saraakiil sare oo reer Israa'iil ayaa muujinaya caro iyo niyad jab kadib markii Hamas ay dib u dhigtay soo gudbinta meydadka maxaabiis ahaan ay u haysato oo la rumaysan yahay inay ku dhinteen gudaha marinka dagaaladu ay aafeeyeen muddada dheer
xamaas ayaa ku doodaysa in 19 ka mid ah meydadka ay ku jiraan meelo hoose oo dumay oo ay adag tahay in si fudud loo soo saaro isla markaana ay u baahan yihiin qalab iyo taageero gaar ah si loo gaaro goobaha ay ku jiraan laakiin dhinaca Israa'iil ayaa arrintaasi ku tilmaantay cudurdaar aan la aqbali karin oo ay kooxdu ku diidayaan in la soo saaro meydadkaasi iyagoo ku andacoonaya inay si buuxda ay u taagan yihiin inaysan dhaqan gelin ama ay doonayaan ama ay og yihiin baa layidhi in ay ku aaseen meelo iyagu ay si gaara uga damacsan yihiin sida laga sheegay war ay baahisay hay-adda ku hadasha afka nidaamka Israa'iil kan la yiraahdo oo xiganaysa mas'uuliyiin Israa'iili ah xubnaha qaar waxa ay tilmaamayaan kooxdu ma muujinayso dadaal dhab ah oo ay ku doonayso in ay ku joojiso xiisadda ayaa lagu yiri warka ka baxay raadiyaha kan waxaana isku dayaysaa inay ka faa'iideysato xaaladda bani'aadanimo ee hadda halkaasi ka taagan caqabad cusub oo hortaagan heshiiska ayuu noqday fulin la'aanta dalabka kooxdan sida Israa'iil iyo Mareykanku ay doodooda u dhigayaan warbixin ka soo baxaya dhinaca dhexdhexaadiyaasha ay ku jiraan Mareykanka Qatar Masar iyo Turkiga ayaa sheegaya in la bilaabayo dadaal cusub oo lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafaadkaasi cusub maadaama uu noqon doono is-hortaag dhab ah oo horseedi kara burburka heshiiska oo lagu bixiyo waqti iyo dadaal badan sida labada dhinac ay ku doodayaan mas'uuliyiin Israa'iili ah ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan kooxo gaar ah oo Misriyiin iyo Qadariyiin ah si ay u gudbiyaan xogta isku duwidda goobaha ay u maleynayaan inay ku jiraan meydadkaasi maxaabiista ah digniin cusub ayaa ka imaanaysa Tel Aviv tanina waxay tahay waxyaabaha sida gaarka u taabanaya Qaahira Dooxa iyo Ankara iyo sidoo kale Washington inkastoo Mareykanku uu ka hor dhaqdhaqaaqan Israa'iil ay caawa bilaabeen uu horey u sheegay Trump in uu fasaxi karayo Mareykanka Israa'iil haddii dhinaca Falastiiniyiinta aan laga helin jawaabo waafiya oo lagu qanci karo dhanka kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dagaalka wali uusan dhamaan iyo in Israa'iil ay gaari doonto dhammaan yoolalka ay dejisay sidoo kale wasiirka difaaca nidaamkaasi ee Katz lagu magacaabo ayaa uga digay kooxda qasam maamulaysa inay jabisho heshiiska isagoo sheegay haddii aysan u hoggaansamin qodobadaasi uu amray ciidamadiisu in ay diyaariyaan qorshe cusub oo lagu burburinayo awoodda kooxda hubeysan ee Falastiiniyiinta sidoo kale iyadoo arrimahaasi ay jiraan waxaa soo baxaya aragtiyo kale oo muhiim ah oo ku saabsan xaaladdan lagu wajahayo gobolka bariga dhexe qobrada siyaasadeed oo gobolka ayaa rumaysan in kulanka golaha wasiiradu uu noqon doono mid go'aan qaadasho leh kaas oo lagu saadaalinayo inuu saameyn weyn ku yeesho mustaqbalka xabad joojinta magaaladaasi iyo dadaalada diblomaasiyadeed oo soconaya oo ku saabsan guud ahaanba colaadaasi in lagu soo afmeero loogana hortago adyad kasta oo ay Israa'iiliyiintu ku dhaqaaqaan haddii Israa'iil ay doonayso inay ka baxdo heshiiska waxaa la filayaa in xaaladda magaalada Gaza ay dib ugu laaban doonto wareeg cusub oo dagaal iyadoo ay adkaan doonto in la helo waddo dib loogu soo celin karo wada hadallada nabadda iyo horumarka ay ku gaari karaan shacabkaasi yoolal ay ku horumarinayaan noloshooda taas oo walaac ku abuuraysa qaar ka mid ah dowladaha waaweyn ee adduunka oo dadaal ku bixinayay sidii xalka madambaysa looga gaari lahaa dagaalka isla wararka gobolka bariga dhexe ayaan ku jiray taliyaha ugu sareeya ciidamada Israa'iil Eyal Zamir lagu magacaabo ayaa caawa qirtay in ciidamadiisu ay ku fashilmeen ilaalinta Israa'iil inay yoolal dhameystiran oo guulo ah ay ka gaaraan dagaalkii ay la galeen Falastiiniyiinta waxa uu sidoo kale eedeeyay in la fahmi waayo dagaalkii dabaysha Aqsa oo ay dhinacyada Falastiiniyiinta ah soo abaabuleen sida uu ku waramayo telefishinka Sky taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil ee lagu magacaabo Eyal Zamir ayaa Khamiistan qirtay in ciidanka Israa'iil uu ku fashilmay waajibaadkii ugu muhiimsanaa ee difaaca dalka iyo shacabka maalintii 7 Oktoobar 2023 xilligaas oo dhaqdhaqaaqa Falastiiniga ah uu qaaday weerarkii taariikhiga ahaa ee loo yaqaanay dabaysha Aqsa ee dhabatay gobolka bariga dhexe isla markaana gelgashay nabadda adduunka caalamkuna ay si weyn ula fariireen weerarkaasi ayaa lagu tilmaamay laguna bartilmaameedsaday inuu ahaa mid xoogan
laguna qabtay saldhigyo military iyo deegaano Israa'iiliyiintu ay hore uga qaateen Falastiin oo ku yaala xadka magaaladii go'doonsanayd waxaana dad dhintay iyo kuwa afduubayaal oo boqolaal gaaraya laga soo qabsado oo Israa'iiliyiin ah jawaabna u ahayd baa la yiri sida kooxdu ay sheegeen dambiyada gumaystaha uu ka geysanayo gobolkaasi oo gaartay boqolaal sano taas oo lagu qabsaday meelo muhiim ah oo ka mid yahay baa la yiri masjidka barakaysan ee Aqsa iyo goobo Falastiiniyiintu ay joogeen waan guulaysanay balse mas'uuliyadeena waa inaan saxno ayuu Iyaal Samiir yiri markaliya ayaa afkiisa waxay qubarada leeyihiin waxa ka soo wada baxaya gool iyo gool darro aan hal meel la qabadsiin karin Samiir ayaa fariin u diray ciidanka iyo shacabka